Maxaad ka taqaanaa magaalo buureedda Kordofan ee dalka Iiraan? Magaalada Kordofan waxay ku taallaa cidhifka ugu shisheeya waqooyi galbeed ee dalka Iiraan. Magaaladani oo buur dhagaxeed salaxyo waaweyn laga qoday ka samaysan, waxay ka mid tahay goobaha ugu la yaabka badan dunida, gaar ahaan marka laga hadlayo dhismaha iyo xadaaraadkii dadkii hore. Eray ahaan, magaca magaalada Kordofan waxaa afka Iiraaniga ku noqonaysa magaalada xabaal-qodayaasha dhagaxaanta. Waa muuqaal aan la rumaysan karin marka meel fog laga joogo in guryo iyo meelo la degan yahay ay yihiin. Waxaa la moodaa sidii boholo iyo godad bahalo-galeen ah oo dudumooyinka sidooda u dhisan, laakiin marka loo dhawaado ayaa la oran karayaa in guryo ay yihiin oo la degan yahay. Kordofan oo ka mid ah waqtigani goobaha loo dalxiis tago ee taariikhiga ah ee dalka Iiraan, waxaa sidii loo degay iyo sababihii ku kalifay dadkii qodayay buurahani leedahay taariikh dheer ilaa 1000 sannadood ku dhow. Sida taariikhda magaalo buureeddan lagu hayo, dadkii hore ugu dhaqnaan jireen deegaankaas ayaa waxaa weerar xoog leh ku soo qaaday xoogagii Mongooliyiinta, kuwaas oo dunida inteeda badan ku qabsaday gulufkoodii weynaa. Dadka reer Kordofan ayaa guryo ka qotay dhagxaanta salaxyada ah ee buuraha ku dhereera jiidaas, halkaas oo ay ku hirgeliyeen magaalo difaac ahaan amnigeedu sugan yahay, isla markaana u adkeysan karta dabeecadaha iyo cimilada qallafsan ee deegaankaas ka jirta. Magaalada Kordofan oo afka Farriisiga macnihiisu noqonayo dhulkii xafaariinta godadka ayaa, inkastoo ay sheeda dudumooyinka abuurku dhiso oo kale u eg tahay, marka gudaha loo galo ka yaabinaya sida ay dhagxaantaas laga qoday uga samaysteen guryaha quruxda badan ee naqshadooda sareyso. Inkastoo Mongooliyiintu jabeen oo aanay jirin cabsidoodii xilligii ay gulufka iyo dagaalka ku qabsanayeen dunida inteeda badanna ay ka nabad galeen, haddana dadka reer Kordofan ilaa weli waa kuwo ku nool guryihii iyo dhagxaantii buuraha ka qoteen ee cabsidu ku kaliftay. Guri kasta oo ku yaalla magaalo buureeddan ku taalla dalka Iiraan ee Kordofan waxa uu leeyahay naqshad iyo hab loo dhisay oo aad kaaga yaabinaysa. Qol kastana waxa uu dhammaystiran waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha aadmiga. Naqshadda ay u sameeyeen waa tan ka wada yaabisay dunida oo dhan, sababtoo ah waxaa dhismahooda la moodaa sida waqtigan casriga ah. Dhammaantood guryaha ku yaalla buurtani waxay u jeedaan dhinaca bari, oo jihada keliya aanay dabayshu ka soo dhicin marka loo joogo buurahan. Haddaba waqtigan oo ay dhammaadeen dadkii xafaariyiinta ah ee qoday buurahan guryaha ka samaysan jiray, ayaa ilaa iyo weli la degan yahay oo guryo cusub laga samaystaa. Marka la wareysto dadka ku nool magaaladani, waxay kuu sheegayaan in qodista halkii qol ama guri ay buurahan hirgelinayso 4 sannadood oo la jafo dhagxaanta salaxa ah. Magaaladan waxaa ku yaalla 190 guri, waxaana ku nool 1000 iyo dheeraad qof. Mar kasta oo aan guri cusub dhisanayno ama aan mid horey u jiray kordhinayno, waxaanu adeegsanaa qaabkii awoowayaasheen wax u dhisan jireen. Dhismo kasta waxa uu u baahan yahay in la raaco qaab injineeri xasaasi ah. Waxaa loo sahmiyaa inaanu dhagaxu noqon mid dumaya. Mar kasta oo aad booqato deegaankani, waxaa dadka ku dhaqani kuula dhaqmayaan sidii qof aanay weligood horey u arag, waxaanay caado u leeyihiin hal-ku-dhegyo iyo naanaysyo ay u bixiyaan dadka soo booqda. Haddana ma aha dad soo dhoweyn xun oo xidhxidhan. Waxaa soo degay ganacsato badan, dalxiisayaashuna way ku soo bateen oo sii kordhiyeen sidii dadka reer Kordofan ka qabeen in lagu celiyo dhulkooda. Dibadda hore ee magaaladan waxaa durba laga hirgeliyey hudheel dalxiis, kaasoo dhisme ahaan wejiga hore looga ekaysiiyey sidii guryaha dhagxaanta salaxyada ka dhisan ee reer Kordofan, laakiin gudihiisu ka duwan yahay oo internet, telefishinno iyo nolosha casriga ah ee dunida ka jirto. Dalxiisayaashu waxay halkan u yimaadaan si ay noo daawadaan, laakiin uma yimaadaan inay nolosha nagala qayb qaataan oo hoos noo ogaadaan. Sidaa waxaa ku odhanay qof kasta oo reer Kordofan ah. Isku soo wada duuboo, magaalada Kordofan waa mid gudaha dalka Iiraan laga wada yaqaano, taariikhdeeduna ku weyn tahay, laakiin muuqaal ahaan waqtigan uga dhigan goob dalxiiseed loo tamasho tago. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.